السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي عن جعلها يسود هذا ملك سواء دونك أكجوكتي وحيد الله هاي فرحة كوارا كسود بو channelka haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto like saarto si share gareyso haddii aadan igu cusbeen ood hore ila joogtayna aad yaa u mahadsan tahay like ii saar ii share garee dhammaantiin waa wada mahadsantihiin aad ayaa wada mahadsantihiin asxaabta igu soo biirtay sidoo kale waa mahadsantihiin dhammaantiin soo wada dhawaada yaa idin leeyahay ha ismartiyeenina mininkaa mininkiina waaye soo dhawaada hore usoo gal channelka marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida videogii hore aan uga hadlay ama maxaa la uga jeediin titleka ama sawirka aad ka arkaysaan videogii hore oo kale ayuu daba joogaa kan maanta waxa waaye waa digirta gaduudan ayaan ka hadlayaa digirta gaduudan waa wada naqaanaa waxyaabaha aan ka hadlayo dhan waa waxa aan wada naqaano laakiin waxaan isku sheegaynaa faa'iidada ku jirto iyo caafimaadka uu noo leeyahay iyo maxaa la dhahay nafaqada ka buuxdo ayaan rabnaa inaan isxasuusino kana faa'iidaysano ayaan rabnaa insha allah soo dhawaada yaa idin leeyahay ha ismartiyeen mar labaad mininkaaga waaye kusoo dhawow channelka waxaan kaa codsanayaa oo video walba aan idinka codsanayaa videoga like-tiisa inaa iga iloobin oo like-ta ii saarto una share garee asxaabtaada kale saaxiibadaada friendskaaga walaalahaaga cidda dhammaan wada share garee marka insha allah ka faa'iidaysta marka barnaamijkeenii ayaan gudagalaynaa insha allah oo maanta aan uga hadleyno faa'iidada digirta gaduudan ee noo leedahay ama digir gaduud sa u taqaaniinbo tii hore waxay ahayd digirta cagaaran ama salbukada ayaan ka hadlaynay videogii ka horeeyay laakiin kan waa digirta gaduudan marka faa'iidada ay noo leedahay digirta gaduuda ayaan ka hadlaynaa calaashaan waa cunto nafaqo badan leh digirta gaduudan sideedaba waa cunto nafaqo badan leh oo si gaara faa'iido ugu leh caafimaadka guud si gaara ay waxay ugu leedahay caafimaadka guud oo cid walbo ayay gaar ahaan ugu fiican tahay caafimaadka guud ay ugu fiican tahay gaar ahaan dadka qaba sokorowga ayay usii fiican tahay iyo kuwa doonaya inay xakameeyaan miisaankooda maxaa meeshaas ku jiro waa dadka miisaanka iska dhimaayo ayadana way u fiican tahay gaar ahaan dadka sokorta qabo siiba dadka maxaa la dhahaye miisaanka iska ridaaya sidoo kale digirta cagaaran ee aan iska soo hadlay maalin dhaweyd iyadana laftigeeda miisaan dhimista aad ayay ugu wanaagsan tahay dadka sokorta qabo badanaa waxaa dhahaa miisaanka dhin haddii baruurtaada ama miisaankaagu uu bato waxaad qarka u saaran tahay sokorow allaha kaa najeeye annagana allaha naga najeeye inta qabtane allaha ka caafiyo marka digirta gaduudan sidaas ayay u fiican tahay oo xakameynaysaa marka faa'iidooyinkeeda ayaa rabaa inaan meeshaan idinkugu soo gudbiyo waxay xakameysaa sokorta dhiigga ani hadalka waan buubsiyaa raalli ahaadaya digirta gaduudan waxay leedahay ama hoos ay u dhigtaa ama si tartiiba ay hoos ugu dhigtaa ama ay yareysaa ama ay kaa caawinaysaa xasilinta sokorta waa xasilinta sokorta aad ayay u wanaagsan tahay oo sokortaada ayay xasilinaysaa sokortaada kor ma u kacayso midda labaad midda idiin sheegayana oon digirtii horena aan kaga soo hadlay oo mar walban aan ka hadlaya cuntada haddaa ka dheragtay lama rabo cuntada waa inaad si normal oo si bini-aadanimo ah u cuntaa oo normal ah cuntada ayaa layska yacnaha waxba ma iga dhibaayay wax kasta oo xadkiisa saa'id noqdo dhib ayay keenaan si normal ayaa u cunay ma dhargeysid oo macnaha aad ha uga dhargin okay fiber fara badan ayaa ka buuxo fiber aad fara badan ayaa ka buuxo fiberka aad ayuu noogu wanaagsan yahay marka wuxuu yareeyaa noogista sokorta sida waa kii hore kale wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka muhiimadu waa dheefshiidka ayuu hagaajiyaa wuxuu kordhiyaa dareenka dhirigta asagana sidoo kale wax kasta aad aragto markaad cunto aad dhaqso ku baahanaynin aad ayay u wanaagsan yihiin oo dhirigtaada baahi kuma qabanayso oo mar walba daqiiqad inaad wax raadisid oo wax cuncuntid ma gelaysid markaas lowlaa ee baahidaada ay xakameysnaato sokortaadana way xakameysnaanaysaa sidoo kaleeto waxaa ku jira borotiin dabiici ah ayaa ku jiro digirta gaduudan waxay u fiican tahay ama ay ku fiican ku jiro borotiin ayaa ku jiro kaas oo kaa caawinayso ee dhismaha murqahaaga ayay dhisaysaa way kaa caawinaysaa sidoo kaleeto
dherega oo kaleeto waa taa midaan kasoo hadlay yareynta cuntada ama cunista xad dhaafka ah ayaa ay kaa yareynaysaa. waxay taageertaa wadnaha, waa sidii digirtii hore oo kaleeto oo cagaarneed. waxay ka kooban tahay potassium, magnesium, antioxidant ayaa ku jiro. waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga, waxay yareysaa kolestaroolka xun, waxay kaa ilaalinaysaa cudurada wadnaha ku dhaco. ilaaha ka magan galnee. waxaa ku jiro fitamiino fara badan ayaa ku jira iyo macdano muhiim ah. digirta gaduudan waxay hodan ku tahay bir, iron, folate, vitamin B6, sin, kuwaas oo xoojiya dhiigga iyo difaaca jirka ayay xoojiyaan. sida loo cuno cid walba way taqaanaa walaalayaal, sida loo cuno si fiican ha u cunin haddaa soo sheegayay oo ka dhargin. sidoo kale iyadoo ceyriin oo kaleeto oo weli si fiican u bislaanin ha cunin. sidoo kale waxaa ku darsan kartaa markaa kariso saladka, bariiska oo buniga ah ama maraqa ama bariiska caadiga xataa wax yaraa kaga darsan kartaa. waxaa iska ilaalinaya sida tii hore oo kale saliid badan ayaa iska ilaalinaya ama subag badan ayaa iska ilaalinaysaa. marka muhiimaduna waxay tahay, waa ogtihiin digirta biyaa lagu kariyaa sideeda banaan, sida ay aad ugu macaantaa waa biyaad ku karinaysaa kadibna macsaradaada ku cun. adiga macsaraaba qabtaa maxaa wax kale ku geynaya. marka waxaa kaleeto marka gunaanadkii digirta gaduudan waa cunto caafimaad leh oo ammaan ah oo ku habboon dadka sokorowga qaba haddii si dheelitiran loo cuno. marka talada ugu muhiimsanne waxa ay tahay ay ku wanaagsan tahay dadka sokorta qaba in ay sideedaba ay taxadaraan, ayna ku darsanin sokor, ayna ku darsanin markay karsadaan digirtaas. waa inay ku darin sokor, waa inay ku darin saliid badan, inaysan ku darin. waa inay biyo caadi ku kariyaan kadibna qaadadooda haddii qaadeer macsaro ku darso wax makaa dhibayso, koobkaaga shaaha aan sokorta lahayn ama qaxwahaaga ayaad ku cabaysaa. marka digirta gaduudan marka aad iyo u wanaagsan tahay, aad iyo u wanaagsan tahay. waxaana ka buuxo sidaan hore inta kugu soo sheegay borotiino, macdano, fitamiino ayaa ku jiro. fitamiinada markaan idin kormaro waa birti, waa ironkii, waa folateki, waa vitamin B6, sin ayaa ku jiro. marka maxaa kaleeto waa arkayseen hadday waxa macnaha waa arkaysay ma dharaal ahaad waa idin sheegay. sidoo kale dheefshiidka ayay hagaajisaa, waxay yareynaysaa sokorta nuugisteeda ayay yareynaysaa. waxay maxaa lahaa ka hortagaysaa dheragta ayay ka hortagtaa oo calooshaada waxaa noqonaya qof dhergan ayaad noqonaysaa. ma u baahnaanaysid cunto fara badan inaad cunto. borotiin dabiici ayaa ku jira digirta gaduudan. sidoo kale waxay u fiican tahay dhismaha murqaha ayay ku dhisaysaa markaad digirta gaduudan aa isticmaashid aadna joogtaysid. sidoo kaleeto dheragta waaba sheegay yareynta cunista xad dhaafka ah na way kaa yareynaysaa oo ma noqonaysid qof baahi hayso oo maanta dhan dhahay waxaasa u baahanahay, baahiya igala caddahay, wax walba gacanta la galahay. ma noqonaysid. waxaa noqonaya qof kaala arago dhargano wax kasta aan baahi ku qabanaynin waxba aan raadin. sababtoo ah waxaaba ku jira borotiin ayba leedahay. borotiinkaasi dadka borotiinku cuno baahi badan ma qabato. marka walaalayaaloo raalli ahaada haddaa hadalka idinku boobsiiyey saasaa dareemooyaa. halayga raalli noqdo. digirta gaduudan iyo digirta cagaaran halaysku ogaado. haddii aad sokor qabtane dadka lamid ma ihid. siiba isteebtuugu wuu baxaa. haddii aad sokor isteebtuu qabto way baxdaa. kaliya cuntadaada hagaaji. kaliya maxaa la dhahaa biyo badan maalintii ugu yaraan 2 litir cab. kaliya maxaa la dhahaye hurdadaadana hagaaji oo habeenkii hurdadaada inay hagaagsanaato isku day oo dhaqso aad seexato. kaliya stresska iska dhaaf. stress wuxuu kuu soo kordhinaya malahan. haddaa hurdadaada hagaajisid stressku wuu baxaya. wax kasta ilaahay u daa. marka intaasaa muhiim ah. cuntadaada hagaajine, hurdadaada saxaysaa oo waqti horaa seexanaysaa, biyo badanaa cabaysaa. cuntadan maxaa la dhahay borotiinka u badanna waad cunaysaa sida digiraha oo kaleeto, ukunta oo kaleeto, jikinka oo kale, waxyaabaha aan dufanta lahayn oo dhana iska ilaalinay. marka aadaa u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga aan jecelahay. fideoyadan waa idiin soo badi doonaa haddii rabbi saamaxo. waana mahadsantihiin, waana idinka sii tagaya asxaabteyda qaaliga aan jecelahay. waxaa idinkaga sii tagayaa salaantii islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo noqo dambe oo xiisa leh fiidiyoogan fiidiyooga xigo inta aan ka gaareyno insha allah.